Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, today waxaa daawadatan video special ah oo ku saabsan top 10 khuraafadka Soomaalidu aaminsan yihiin. Markaan waxaan idin rajayn lahaa daawasho xiiso leh. Enjoy. Number 10. Kabaha. Dadku badan kabaha waxay u dhaanaa ama xarago, sports ama raaxo. Laakiin Soomaalida qaar baa aaminsan khuraafad ku saabsan xagga kabaha oo ah hadduu kabuhu rogi yahay waxay yiraahdaan wax xun ba ku helaya. qofka kabaas kale ama waxa la yiraahdaa shaydaanka ku sujuudiya kabaas marka wana degdeg loo roga khuraafad kale way jirta xagga kabaha ku saabsan oo la yiraahdo labada kabood hadii isku saaran yihiin qofka waxa soo socda wanaag ama waxa la yiraahdaa wadoofisa ama lacag bad helisa marka khuraafada number 10 waxa weeyaan kabaha number 9 cidiya gurista imka hadda wasweydiin soo xad leedahay cidiya gurista maxay noqotaa khuraafad iyadoo ka mid ah nadaafadda Soomaalida badankoodu waxay aaminsan yihiin khuraafad ku saabsan xagga cidiya gurista oo ah haddaad cidiya iska gurtid habeen adoo guriga jooga waxa ku helaya wax xun ama faqri ku helaya ama qof jeceshahay dhimanaya Soomaalida badankoodu way iska ilaaliyaan habeenkii iska guraan cidiyaha number 8 markaad heshaan wax cusub waxa cusub aad helaysan ama ha noqdo gaari ama ha noqdo guri su'aashana waxa soo weydiisan hooyooyinkiin iyo ayeeyooyinkiin marka waxa cusub la helo ayaanta waxa la sameeyaa bun salool iyo beed baa la keenayaa bunku waa la cabiya laakiin maxaa lagu sameeyaa saloolka iyo beedka saloolka ma waxa lagu daadanayaa guriga ama waxa lagu shubayaa gaariga beedkan waxa lagu jabinayaa guriga ama waxa lagu jabinayaa laftiisa gaariga markaas kale waxa la yiraahdaa wixii celinaysa in gaariga ama gurigu xumaan ku yimaadaan ishana way ka celinaysaa number 7 xanuun iyo daawo wali amal maqashii qofku ugu wuri afkii caariga kaaday ajiib anta waliga was wadiin jiraan oo yar sidaas u dhacda kadib waxaan ogaaday show qofkaas kale waxa ku dhacaa xanuuno oo kamid yahay min loo yaqaano xanuun la thalassemia ama hablabaas ama xasaasiyad ka yeesho cuntada sida caanaha amba beedka arrimahaas oo waxay keen kartaa in qofku finanka afka ka soo baxo laakiin Soomaalida khuraafad beddelin loo yaqaano caara afka kaga kaaday si caruurta loo aamusiyo ajiib waa shaqo Spiderman ku habeen ku soo dhaco afka kaga kaaja oo yiraahdo afka kaga kaaji iyadoo kalena waxaa jirta dadkii bariga hore markii caloosha xanuunayso ama baareerada qofkiina caloosha laga gubo ama kibrid ama midi inta dambe alxamdulillah dadka saama sameeyaan sidaas loo yiri Soomaalida oo dhan waa dhaqaatir waayo haduu qof meel ka cabanayo Soomaalida waligood waxay tilmaamaan ama wuxuu qoray maxay gub ama wuxuu qoray maxay diiri ama wuxuu ku tilmaamay inaan calina calaalisi saas waa dadku badankeedu marka la yiraahdo caloosha xanuunaysa ay ka timid fikradu in la yiraahdo sabana cab ma hadda dhinac ka eegtina sabana ka dan cabi jiroon ku boogsan jiray Soomaalida marka khuraafad kasto iska aaminayaan waanay iska qaadanayaan number 6 qortadu shaydaan maaha Soomaali badan baa aaminsan in shaydaanku qorto iska dhigo marka way ka baqaan inay dilaan qortadu waxay ka mid tahay xayawaanada shanta ee Nabiga Kaleey salaam inoo baneeyay inaan dilno waayo qortadu waxa weeyaan xayawaankii ku afuufiyay Nabi Ibraahim Kaleey salaam marka dabka lagu shiray marka waxa weeyaan xalaal bay noo tahay inaan qortada dilno waan wuxuu dhigmataa 100 sano adoo hela waxa qof kasta waxa la talin lahaa inuu kabtiisa qaato ee qortada guriga joogtay in laayo number 5 qabyaaladu waxa weeyaan arinta waa number 1 ka ee xadaarada Soomaalida dib u dhigtay dadka kale naga xirsiisay qabiilka Ilaahay wuxuu abuuray li tacaaruf si Ilaahay quraankiisa ku sheegay ya ayuha naas inna khalaqnakum min dhakrin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila ta'aarafu wa si la isku barto laakiin Soomaalida arinta waxaan ka dhignaa kaftan iyo oo qabiil kasta wuxuu leeyahay arin lagu naanayso oo lagu caayo qabiil baa jira loo yaqaano qabiilka waxa loo yaqaan maray cunta qabiil waxa jira lagu caayo la dhahdo kala mooyo wax kala ma cuna qabiilka la dhahdo albaabadu ma habeenada furaana wallahu a'lam qabiil kasta marka wuxuu leeyahay san sheegay arin lagu caayo qabiil baa jira waanu aan garanayo wararkooda ma sha Allah yihiin oo dad wanaagsan yihiin oo asxaabteedina ka mid yihiin oo loo yaqaan midgaanka oo lagu naanaysan la yiraahdo neef baqtiyo cunay arintaas wuxuu ku bilaabantay kaftan ilaa ay noqotay serious ودد بقولون كود عارنا ساسة جرتا
warbaxaad ka ogti innaa lilah dadkii taariikhda la weydiiyey waxay kordhinayaan sheekada kaftan bay ahayd waananu ogey ilaa iyo imka xaadirkiina waxay noqotay arrin seriousa oo xasaasa marka soomaalidu waxay ka sameeyeen qabiilka khuraafadaas oo ilaa iyo imka dad badan aaminsan yihiin dadkana waxaan u sheegi lahaa ilaahay naxariisto arrintaana dib ugu noqdan lahaa because haba yaraatee waxba kama jiraan dad wax ka sheegtaanba idinka laftiinaabaa cunaa neefkaa baktiye number 4 maqaamka u barkhadle wuxuu ku yaalaa waqooyi galbeed dalka Soomaaliland haddii la weydiisana maqaamku wuxuu faa'iido ka leeyahay wallahi haba yaraatee ma garanayo waayo waxay keenaan xumaan iyo shirki dadka badankooda waxa ka dhacsan khuraafad hadad maqaamka ku sadaqaysatid ama neefada gowracdid baraka ku iimaanaysa dumarna waxa ka jira badankooda Ilaahay naxariistee dumarka xamliga ku iimaan waaye in dhagax barta ku yaala intay fadhiistaan ay isleeyihiin ma hadad maqaamka ka barakaysatid waxa ku iimanaya umashi waxaasna waxba kama jiraan waana khuraafadooyinka ugu waaweyn ka mid ah ee ka socda dalka number 3 cuudinta waa nooc min alkhuraafaat ay dadku aaminsan yihiin khaasatan dumarka da'da leh oo ay aaminsan yihiin haddii isku shidaan foox ama unsi oo biyo isku shubaan ama salool isku daadiyaan wixii ka celinaysa isha ama khayr bay u keenaysaa dadka badanaa da'da lehna way sameeyeen ilaa imika haddana weli way socotaa dad badanba waxaa lagu sameeyey oo qurba jooga oo isgaranayaan waa isgaranaysaan soo maha dadkan la hadlayo caruur badan oo dibadaha ka timid baan garanayaa oo iyagoo yaryar lagu buufin jiray unsiyada noqoto dibiya noqoto lagu oran jiray waa nooc min alcuudis caruurteeda war uma hayaan waxay is oran jireen hooyo qofkan muxuu canuufta ugu tuftufaya dad badan baa isgaranaya hadda daawanaya oo le oran xasuusanaa marka waa nooc min alkhuraafad dadka aaminsan yihiin ilaa imikaad jirta marka laga taxaduro because ilaahay ducadiisu ma socota wax kale ma number 2 jinka badda ku jira imsa qof anoo yar bay baqdisay guri warayaa hasku tagin badda habeenkii laguma dabaasho aan oran jiray waayo iyo oran jiray jimba ku jira oo ku soo raacaya khuraafadaasna waxay ka bilaamatay dad badan oo waxaas ka aaminsan oo leh jinka badda ku jirta waayo xadiis badan ku sheegay inuu ibliis kursigiisa dhigto carshigiisa badda marka hal isweydiiyo jinka markaa ma habeenkii ku soo raacaya muxuu dharaartii ku soo raaci waaye muxuu doorkii ku soo raaci waaye muxuu galabtii ku soo raaci waaye waayo khaasatan muxuu habeenkii ka soo raacaya imka badda barbara dad traadid gal habeenkii lixda waa la xidha khuraafada waxaan moodayay inay aaminsanaayeen reer Soomaaliya laakiin waxa dhacday in reer Jabuuti laftooda aaminsan yihiin iyo carabtuba oo iyagu laftoodu dadkooda badan u diidayaan inay dabaashaan habeenada dambe khuraafadana marwaqo gashay waxa weeyaan durmaanka tuma sawirada beenta Soomaalida badankeeda Ilaahay naxariisto waxay iska aaminayaan wax walba khaasatan hadii noqoto sawir sheeka la socdo 2005 sawir baa ku faafay dalkeena sawirkan oo ahayd hooyo inateeda ku tiray salaada quraanka akhriso inatuna marwaba aad wixii u daawan jirtay laba channel loo yaqaano melody iyo musica niyo melody hits أنا والله بريح سخطر وسودي كذا كانوا يوم الزيكا لفتي دبا لو حاجة كده يعني مك oh my god I mean it's been a long time أنا مسكين أبغى قال شغله مركب واحد هاي إن أنت هسبا هو يجي أنت ديدي كتاب القرآن كقاعدة أي نت لك كتورتي مركب واحد اللي نت وحين نقطي نوع من أي يو قف سكوتشرا I don't know so like صور كان وحوي God knows كده إنه واحد علي صور كنا نسوي على ميوزيوم يا ميوزيوم كان سلقة صوري مركز ذلك الوفاء فيه ذلك إنه بدرنا صورنا نوع عند سواقاتان بإسلام يكون حريان إما كواحد يكون سواقاتي يعني قف ري بسط الله جايو نعنة الله عليك أنت كوري قف كنا واحد تسوي سواق بسط نقطة أنا من ذلك بدنا حاسس كأمسين سألوا لي قف كسرادة تكون وايو مس بوي ماده ورب الله عليك مس نول اللي كوي ما يدا سرادة تكتل إلهي بقول حساب طبيعي حسن يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ما قد تدخل بدن كينا وحاصل من يسكامنا صورنا بدنا وي بدين هبا تدون سنة أركان
dadka lagaga baqsiinayo intii ugu dambeysayna sawir baa dalkeena ku faafay wala garanaya oo sawirkii ninkii midooba ee dadka soo qaraacay dadku badankooda waxaa bay yidhahdeen hadduu ninkan soo qaraaco waaba dhimanaysaa dad baa si xumu aamine heer u baqay oo telefoonadu qamoy bilaa calaykum 21st century baan ku noolnahay waa 2018 caalamku wuxuu doonayaa inuu technology-gii heer dambe inuu keeno gawaari duulada doonaya robotyo halaya la sameynaya dadkeena Soomaalidu bilaa calaykum waxaad ka baqasaan sawir soo qaraacaya halkaas marayaan dadkeena halkaas xadaarada marayaan khuraafaadkeena aaminsanay halkaas maraysa jahligeena waa aad buu ugu weeyay marka Soomaalidu waxaan turanayaa hal taxaduro ya iska dhigal bax aqliyeesha what's wrong with you والله هذا واحد نقول لك لحين dadka caalamku waa la yaab ilaa xooladaa wow dadkan xadaaradooda low weeyaan marka Soomaalidu waxaan u sheegi lahaa please I mean come on open your mind kina marka saasan ku soo dhameynaa khuraafaadkeeni top 10 ka hadii jiraan waxaan ka tagay ama khuraafada doosan ku soo kordhisaan you guys are welcome ku soo dara comment ka raaciya aad ku mahadsantiin la daawataan there's our top 10 خرافات كسوبر دا أمسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته